بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والنار لا تطهر شيئا إلى آخره. waxaan ku dhex jirnay qofkii musalliga ahaa nijaasadii lasoo gudboonaata maxaa laga yeelaya. markaasuu uri wannaaru laa tutahiru shay-an, shay ma tahirto oo ma aha yani nijaasta jeermis oo kulayl ku baxaya ma aha buu leeyahy. mathalan koob oo biyo ah yaa dhibackaadii ee gaartay, haddii dabka inta loo kululeeyo jalmad lagu shubo ou karkaro oo ma la leeyahay nijaastii waa ka dhammaatay? maya laakiin waxaa lagu leeyahay hadda waxaa jirto majaaridan biyaha ku socdaan oo kaadida iyo saxarada ah. caalamka teknolojiga wuxuu gaaray ilaa biyihii iyo nijaastii la kala bixi karo oo biyihii sideeda lagu soo celi karo, nijaastana gooni loo bixi karo, taas dhib ma laha. ayib, meelo badan baa ayna culamada uga hadleen. walbisaadu gogashane kal ardi buu la mid yahay. bisaadka waxa weeyaan gogasha adiga ama salligaaga ha noqoto, firaashka aad ku jiifanay ha noqoto, waxay ahaatabo hadday nijaas gaarto sida dhulkii loo dahirinaya. fain sallaa fii mowdicin minhu daahirun walbaaqi najisun lam tasqud calayhi hiyaabuhu ajza'ahu. wuxuu iri fain sallaa fii mowdicin, hadduu mowdac ku dukado oo minhu mowdicin daahirin minhu, saas fii mowdicin oo minhu min albisaad daahirin ee daahir ah walbaaqina najisun ou yahay, lam tasqud calayhi hiyaabuhu, dharkiisana ausan taabanin, ousan ku duldhicin, ajza'ahu. gogol weyn aada haysta ama sajaadad dhinacay nijaas ka tahay dhinacna daahir, dhinacii daahirka aad ku dukatay waad is aruurisay, dharkaadii walaajirkaadii meeshii nijaasta ay ma gaarin, misaasaad ku dukatay, wax dhib ma laha buu ku leeyahy, wax dhib ma laha. ayib, walaa ba'sa an yamura aljunubu fi lmasjidi maaran. ninka junubka ah masaajidka inuu ku nagaado ma u banaano, laakiin inuu maro mathalan gurigiisa halkaasuu ku yaalaa, masjidka dushiisa dhinaciisa kalena waa muqtasalkii lagu qabaysanay, marka inuu gurigiisa kasoo baxa masaajidka uu dhex maro asagoo qabayska u jeeda maa fi ay mushkila. walaa ba'sa, wax dhib male an yamura aljunubu, ninkii junubka ah inuu maro fi lmasjidi maaran maritaan, walaa yuqiimu fiihi mana ku nagaan karo. wata'awala imaamu shaafici wuxuu ta'wiilsaday oo arrintaas u daliishtay qowl allahi subxaanahu watacaala walaa junuban ilaa caabirii sabiilin xataa taqtasiluu laa taqrabu salaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluuna walaa junuban ilaa caabirii sabiilin xataa taqtasiluu. salaadii ha u dhowaanin adinkoo oo khamro cabay waa intaan la xarimin, walaa junubanna adinkoo junub ane makaani salaad ha u dhowaanina ilaa caabiri sabiili, jid aad gudbaysiin hadduu masaajidka noqdo mooye, xataa taqtasiluu intaad kasoo qabaysataan. qaala shaafici uri wadalika cindii mowdici salaad. waxaa loo jeedaa markuu leeyahay caabiri sabiilin meesha lagu dukanaa waaye. wa akrahu waa nacayaa mamara alxaa'idi fiihi, naagtii xaydka qabtay inay marto waa nacayaa buuri. macnaha wa akrah markuu leeyahay karaahata tansiih waaye, ee junubka waxma dhaanto. wuxuu dumarka u sii sheegay, waxaa ku leeyahay waxaan ka cabsanaa ninka junub hadduu yahay nijaas ka go-ayso oo ka daadanayso masaajidku daadanay ma jirto, laakiin naagti waxaan u nacayaa buuri waxaa dhici karta xaydkeeda inuu kusoo dhibco masaajidki. haddii laakiin taxafud samayso oo ay wax isku xirto iska dhex marto sidii junubka ay la xugum tahay. walaa ba'sa an yabiita almushriku fi kuli masjidin ila almasjid alxaraam. waxaan dhib lahayn buu iri an yabiita almushriku fi kuli masjidin, masjid dhammaantiis inuu uu ku hoydo, ila almasjid alxaraam aan loo ogolayn. inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu almasjid alxaraam baa ilaah yiri. macnaha xaramka mantiqadaas oo dhan in lasoo geliyo maba banaana gaalada.
marka taas laysa liajli annahu masjid ma ahane liajli annahu xaram. laakiin masaajidii kale ninkii gaalka ahay caawa hadduu marti yahay meeluu jiifto oo waayo waa iska jiifa karaa. liannika nabiga ninkii Thumaama ibn Athaal markuu Madiina ugu yimiday waa la qabtay masjidkaa lagu xiray ilaa 3 habeen wax ku dhow buu ku xirnay oo nabiga uu yiri markaa islaamka iyo wixii inuu bandhigo waa diiday. markii la fasaxay uu soo laabtay hadirtaan isa waxa weeyaan ninkaas wuxuu diidaya qasab baa lagu islaami in la yiraahdo. waa liqowli Illaahi caza wajalla masjidka xaraamka wuxuu kaga duwan yahay falaa yaqrabu almasjid alxaraama bacda caamihim hada ilaahi uu yiri gaal iyo xaraam masjidka alxaraamka oo kacbada ku yaalo maanta kadib yuusan imaanin. qaala almuzaniyu wuxuu yiri asagoo yactaridu calaa shaykhihi faidaa baata fiihi lmushriku ninkii mushrika ahay hadduu inuu baryo u banaanaatay masjidka falmuslimu ljunubu awlaa ninka junubka ah yaa awlaa ka fiican an yajlisa fiihi wayabiita inuu fadhiisto oo macnaha ku baryana yaa ugu wanaagsan buu yiri. macnaha wuxuu diidaa imaamu shaafici uu ninkii junubka ahay waa mari karaa tiri laakiin masaajidka kuma nagaa karo walaa yuqiimu. mushrikna waad u banaysay. waxaan ognahay ninka mu'minka ah oo junubka nijaas ma aha laakiin qabayskaas la qabaysiita waa tacabud waay inuu nijaasoobay ma aha. marka waxaan diidayaa buuri faidaa baata fiihi lmushriku mushrik haddii uu bannaan yahay masjidka inuu ku baryo falmuslimu ljunubu ninkii muslimka oo junubka ahay yaa awlaa kaga haboon an yajlisa fiihi masaajidka in loo saamaxa inuu fadhiisto oo wayabiita uu ku baryo. wuxuu yiri markaa laakiin imaamu lmusani yastadi maca annas imaamu shaafici yaa kaga wanaagsan liannahu inuu yidhaha labadoodii waa isla baryi karaan taas waa iska mas'alo kale. laakiin ninka mushrika inuu masjid baryi karo nasaa ku soo arooray in la ictiraadi karo maba waa wax dhacay oo nabiga dabaqay. waa aayadan haddii aanan ninka maritaan lagu fasirin walaa junuban ilaa caabiri sabiilin maxaan ku iraahdaa masjidka haddaan lagu fasirin tafsiirkeeda kale intuu ka imaanaya. marka qolaa waxay leeyihiin ilaa caabiri sabiili nin musaafir hadduu yahay waa bannaan tahay masjidkii inuu ku baryo. wuxuu yiri waa uxibu waxaan jeclahay icdaama almasjidi masjidka in la weyneeyo can an yabiita fiihi lmushriku ninka mushrika inuu ku baryo aw yaqcuda fiih waa fiican tahay laakiin waa bannaan tahay liannahu nabiga maalinkaas wuxuu heli karay inuu meel kale ku xiro ninka Thumaama la yiraahdo liannahu gaalka waxaan yiri nijaasadiisa nijaasa cayni ma aha laakiin waa macnawi. qaala shaaficiyu wannahyu can salaati fi actaani libili ikhtiyaaru liqowli nabiy sala allahu alayhi wasalam fainaha jinnun min jinnin khuliqat. macnaha wuxuu leeyahy wannahyu can salaati salaada marka la iska reebay fi actaani libili geela meesha fadhigiisa xeradiisa aan lagu dukanin nabiga markuu yiriyey ikhtiyaarun waa yani nabigaa doorto sunno waaye waa liqowli nabiy iyuu yiri oo fa inahaa jinnun min jinnin khuliqat. ayib fa inahaa jinnun min jinnin khuliqat lafdigaas ma garanayo laakiin allafdu lmashhuur waxa waaye inuu nabigu yiri laa tusalluu fi mabaariki alibili geela meelaha uu fadhiistaa ku dukanina fa inahaa min ashayaatiin. macnaha shayaatiinta waxaa loo jeedaa layiri yani khuluqda oo jafaafka iyo shaydaannimada khuluqdeeda ay leedahay geela xaqiiqa ahaan shaydaanay kasoo farcantay ma ah. haddii shaydaan ka farcantmi lahayd in la cuno maba banaanaan lahayn laakiin sifaadkii geela sifaadkiisa shaydaan kale walidaalika nabigu wuxuu uri alkibriyaa walkhuyaara fi ahli libil waa jaahiliin isla weyninka iyo balaayada shayaadiinida sifaadkoodii waa. hadda fiiri khuliqa alinsaanu min cajal ilaahay markuu leeyahy dadka degdeg lagama abuurin
لكن وحويان يعني أنه يتركب عليه صفة العجلة. طيب وكما قال حين ناموا عن الصلاة اخرجوا بنا من هذا الوادي فإن به شيطانا. وحاوري نبي مر أيوة مسافرين يمي الوادي أي كفرتين بلال ليري صلاة النو إلالي مركاسو بلال انتو هاشيسو كتير سديبو هرددي يولا دعي وإسكا إلوبي هرددي قادي وحالا أركي قرحدي كليل كده سو كعيدتك صلاة الصبح دا دافتي markaasuu nabiga markii la yiri salaada aan dukano oo riwaadigan horta aan ka tagna buuri shaydaana ku jiro oo markaas sabab u ah inuu salaadii uu naga mashquuliyo marka meel ay salaada nooga tagtay khayr ma leh naga kaxay buu nabiga yiri طيب oo irhalu min hada alwadi fa inna fihi shaytanan wa sunan ba ku soo arortay fa kuriha qurbuhu uri in loo dhawaado yaa la nacay laa lilnajaasati alibili walaa mawdican fiihi shaytaan yacni marka nebiga uu leeyahay shayaatin geela yaan lagu dukanin mooradiisa ma aha linajaasati alibili ma aha ama meesha uu fadhiista uu biyaha ku sugo walaa mawdican fiihi shaytaan shaydaanka meeshuu fariista waa nijaasowdi macnaheedii ma aha maxaa yeelay waqad mara binnabiy sala allahu alayh wasalam shaytaan fakhanaqahu nebigoo salaad ku jiro yaa shaydaan intuu u yimiday yuu nebigii marka shaydaankiyaas ceejiyey khanaqahu haddii shaydaanka nijaas uu ahaan lahay in asagoo nebiga salaada ku jiro ou qabto salaadaa ka buri lahayd sidii markaa oo qofka haddii uu salaadii asoo ku jiro nijaaso ou xasuusta ama ay ka timaado salaadii waa ka baxaa marka waxaan ogaanay shaydaanka iyo ibilka macnaheeda inay nijaasatul cayn yihiin ma aha laakiin waa laga fiican yahay oo kale waa laakiin ma aha xaraam walam tafsud calayhi salaatuhu nebiga markuu ninkii ceejiyey shaydaankii ahay salaadiisa kama fasaadin wa maraaxu lghanami alladii tajuusu fiihi salaatu الذي لا بول فيه ولا بحر نبي وحوري صلوا في مرابض الغنم أوري أريجا حرديس أما ماشي أو فريست هلو كذا مركو النبي يري وحو أجد أبوري الذي تجوز فيه الصلاة مراحقة أو إن لقد كذا أي بنانتاي الذي لا بول فيه مت كان كذا دي أريجا أن لهين وغاي nabiga wuxuu uri geela maraabidkiisa meesha uu fadhiista yaa lagu dukanin ariga meeshiisana ha lagu dukado bimacnaa yajuusu salaatu fiihi waay marka macnaheedii ma waxa weeyaan imaamu shaafici madhabtiisu ilaashanaa markuu nabigana yiri waa lagu duka karaa meeshuu ariga uu fadhiisto wuxuu u jeedaa buuri meeshuu ariga ku kaadinin laakiin uu iskaga nasto laakiin hadday tahay meel uu fadhiisto ku kaadkaadiyo salaad laguma dukan karo liannahu kaadidiisa waa nijaas dadna waxay leeyihiin maye kaadidii ghanamka waa daahir liannahu waxa weeyaan waa mid hilibkiisa la cunayo marka digadiisa iyo kaadidiisa waa geela waxaa loo reebay وكراهة لأنه وحويان إن صفاتكيس آن كسبنو أيضا لغا عبسانيو يعني قال الرهبي مركا وحوري الذي تجوز فيه الصلاة الذي لا بول فيه ولا بعر الدقان آن لهين دقادا أو حولها ليرادا ويلي وتنقيل قارهان والعطن موضوع قرب المئر الذي يتنحى إليه الإبل ليرد غيرها الماء لا المراح الذي تبيت فيه مرك صلوا في أعطان الإبل مرك النبي ما لا تصلوا في أعطان الإبل مرك النبي لا وجد أبوري والعطن موضع واي أو قرب البئر عالك أكتيسا الذي يتنحى إليه الإبل جيل حقي سأسكته
liyarida gayruha almaa ayada waxaan ahayn sidii biyaha ay u cabaan. geeleyda ceelka markay ku kulmaan ninna geeliisa waa cabaya oo saf la soo gelinaya, markuu geelaa dhammaysto biyo cabitaankii gadaalaa loo sijinayaa, meel oo lagu horayaa jirto, sidii hadhow rakaad buu sugayaa min jadiid inuu biyihii u cabo. meeshaas uu ku sugayo yaa catin la yiraahdaa. marka imaamu shaafici wuxuu leeyahay kaas marka waxa weeyaan ayaa la reebay in lagu dukado. lalmuraax ma aha mooradii aladii tabiitu fiih, mooradii ay ku hoyanaysay. muraax marcana waa la yihahdaa, mooradana waa la yihahda. hadda imaamu shaafici aladii tabiitu fiih buuri, meeshii ay baryeysay, liannahu diga lagama waayo, kaadi lagama waayo, weliba waa aad bay meesha ugu badan tahay. taas wuxuu leeyahay waaba manhi oo maba ahane maba ku ansaxaysaba salaad. laakiin midaan kale haddii geela meeshuu fadhiisto oon kaadi lahayn oo aan diga lahayn, haddii lagu dukada salaaddii waa ansaxay. laakiin waxa weeyaan makruuh karaahata tansiih waay, xadiidkii buu ilaalinayaa, macnaha saasuu u jeeda. ayib, baabu alawqaat alatii yukrahu fiiha salaatu tatawuc wayajuusu fiiha alfariidatu walqadaau waljanaazatu wagayruha. inta wuxuu ka hadlaya awqaad waxaa jiro oo salawaadka la reebay in la dukado. imaamu shaafici wuxuu ri salaadaas la reebay waa salaad tatawuca oon sabab lahayn, laakiin hadday fariido tahay ama qada ay tahay salaad ku soo dhaaftay ama janaaza ama keyrkeeda, waqtigaas waa la dukan karaa. ayib, qaala almusaniyu qaala shaaficiyu akhbaranaa malik can muxamed bni yaxya bni xabaan can alacraji can abi hurayrata ana anabiya sala allahu alayh wasalam qaala laa salaata bacda alcasri xataa tagruba ashamsu walaa salaata bacda asubxi xataa tadluca ashamsu. nabigu wuxuu iri laa salaata bacda alcasri, salaad casrka kadib la dukanaya ma jirto, xataa tagruba ashamsu, ilaa ay qoraxda ka dhacdo. walaa salaata bacda subxina ma jirto xataa tadluca ashamsu. sababta loo reebayne waa la sheegi doonaa. waqtiyaasha manhiga haddii laysku jumleeyo waa 3, haddii lakala bixbixiyana waa 5. haddii la jumleeyo layidhah laa salaata bacda alcasri xataa taqruba ashamsu waa hal waqti, walaa salaata bacda asubxi xataa tadluca ashamsune waa hal waqti. waxaa ku soo xigi doona waqtiga oo ay samada fii muntasafi nahaar yaa saddexeeyo, saddexdaas yay noqonaysaa. haddii lakala fogfogeeyane oo lakala bixiyane bacda alcasri waa mamnuuc. wa cinda guruubi الshamsi ashaddu xurmatan, laba isla gelaysa bacda alcasri. bacda subxina waa manhi, wa cinda طuluuci الshamsina akharu nahyan waa 4, iyo cinda istiwaaءi الshamsi fi muntasafi الnahaar. طيب، وعن أبي ذر عن النبي مثل ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بمكة. طيب، حديث كان إلا بمكة أحمد iyo ابن خزيمة iyo yaa wariyeen، laakiin xadiiث منqaطca waay. imaam الxاaفظ بن xaجر في بلوغ المرام uu ku ضaciifiye. وعن الصباحية أن رsuuل الله marka haddii xadiidka uu ansixi waayo مكة وغayruha sawاء. وعن الصباحية أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دلت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الأوقات.
أحاديث ماشا كسو أرورتي معنيه ذبو إمام الشافعي أو لفظي أهان أشياء لكن لم يتقيد بالألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم معنيه ذي سيداس اسكوا إن الشمس تطلع ويسود لنا ومعها قرن الشيطان بو معناه اسكو آدنا شيطانك قراح دمرك سو دعي بالنسبة لمرآنا أنه وينو سو بحي ضدنا ويودعي سامركاس لكن باعتباري أنك أركتينا دي إنه حد صوبحها إنه أكتاهي شيطانا اسكو قدادودا مركان اسكو آدنا إياه مركا وحور ربا نكي وقت قاس دوكادو إنو اسموجي إن أسلو دوكاناي ولذلك كوان عباد الشمس وهذا هندي إمالة بدن كنول لوضع وقت حوق يسارين قرح دمركي أي سو بحيسنا واستقباليان عبادي كسو دوينيان marka ay dhici rabtana cibaaday ku sagootinayaan sidoo nabiga sheegay way waxay caabudayaan waa shaytaankaas sadaqa rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam طيب فإذا ارتفعت قرحدي هدي soo dheeraato oo waqtiga duxada ay gaarto faaraqaha فإذا استوت هدي ay samada dhexdeeda ku ekaatana qaaranaha min jadiid هديت ماذا في وسط السماء وساعة 12 ظهرا أما 6 ساعة ظهر نما أيتي ماذا هدنا والسو حرير سنة فإذا زالت إنع قلبيتك هدي آدنا فارقها فإذا دنت هدي دوات للغروب مركا إحمالارك سمينيسو يقارنها مركا لسو حرير سنة يا سيدي مركا لو عابدو فإذا غربت فارقها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات sidaa daraadeed buu nabigu u reebay marka waxa weeyaan nahyigii waa mucallal sababta loo reebo nabiga noo cadeeyay asiga haduu noo sheegi lahayn samicna wa ata'na haduu noo sheegana jazaaka allahu ya rasuul allah baan leenahay marka asbaabta loo keenay waxay tahay shaydaan baa wuxuu rabaa waqtiyaashaas dadka cibaadada ilaahay inuu ka sarfiyo ama cibaadadooda uu wax ku yeeshto saasuu doonayaa sidaasaa loo reebay وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. طيب حديث كان نهى عن الصلاة نصف النهار عقبة حديث عقبة 3 أوقات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاة مركا حين تطلع الشمس وحين تستوي وحين تتضيف للغروب حديث كان صحيح ولا وذي قانا لفظ كان حديث أبي سعيد وحديث ضعيف ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم ابن حجر أن رسول الله نهى عن الصلاة نصف النهار لفظ قاس معنيه سوا صحيح لا حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة استثناء ثالث واشتا يعني يوم الجمعة إن محانكو إرادة أي بنانتها في وقت استواء الشمس حديث كسو أرور ضعيف وعليه هدان دليل كثير يوم الجمعة وغيرها وسواء حديث أبي هريرة أو لها هدي أو جمعة ساعات باكجر لا يوافقها عبد يصلي لله قائما إلا قبل دعواه أو كما قال هدي ليرادو وعند صعود الإمام للمنبر نكي وقتها صلاة كجرو أما إلهي بريه ساعة الإجابة يوافق كرابا ليري حديث كاس مفهوم لو دليشت حديث كاس نوا مسلم بهوري لكن والسكو هايستا. وعن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار.
يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت. لفظي حديث صاصوه من ولي منكم من أمر الناس شيئا هدي حرمك أمر كيس وحلدين كقديبه فلا يمنعن أحدكم أحدا متكين يوسن ريب أحدا طاف بهذا البيت بيت كان طوافي أو طوافي أو صلى كد كذو أية ساعة شاء من ليل أو نهار هبين هالنقطة مالن هالنقطة نين حرمك وقتك كد كنايو هالريبنا. مرك حديث كان هل هو موجه لجواز الصلاة والطواف للبيت في كل الأوقات مساسا لولا جيدا مسددك أولياء الأمور مسجد كان حرنا ددك أفورا marka dadka ayaga laga rabaa waqtiga maniga inay ilaaliyaan aniga hadan waliyo amri aan ahay dadka ma dhihi kara hadukanina waqtigan marka xadiidka mafhuumkiisa la isku haystaa maadaama axaadiis badan oo saxiixa ay ku soo aroortay in maxaan ku iraadaa aan waqtiga la duka karin in la yiraahdo jumcada waa laga soo reebay nas sariixa oo saxiixa u baahan yahay hadda xadiidkan waa saxiix la yiraahdo laakiin macnihiisa sariix kuma ah xadiidkan wuxuu doonayaa inuu masjidka maftuux fi kulli awqaat inuu yahay yaa laga fahmaya laakiin laa yufhamu minhu as-samaaxu linnaasi an yusalli fi awqaati nahy waa mas'alo oo la wada yaqaan culamada ay hore uga hadleen qaala al-Muzaniyu qaala ash-Shaafici wa bihada aqulu والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات عن التطوع إلا يوم الجمعة للتهجير حتى يخرج الإمام فأما صلاة فرض أو جنازة أو مأمور بها مؤكدة وإن لم تكن فرضا أو كان يصليها فأغفلها فتصلى في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله في قوله من نسي وحوري وبهذا نصوصتان عن soo sheegay yaan aquulu leeyahay marka waa maxay marka wanahyu can salaati fi hadihi alawqaat salaada waqtiyaasha la iska reebay waa waxa weeyaan annahyu can atatawuc ilaa ilaa yowma aljumcati oo tatawuca mudlaqa uu bannaan yahay wuxuu unoo bannaanaaday litahjiiri in masaajidka maxaan ku iraadaa loo jarmaado ama waqtiga subaxi la aado oo marka masjidka marka la aadayana salaada la dukanaya xataa yakhruja al-imaam qofkii inuu ku cibaadeysto yaa la doonaya asigoo rajaa isaabati saacati al-ijaaba marka maadaama masjidka haliiraha loo tabkiiriyo oo macnaha waqti kasta hala aada aroortii duhurkii marka dadkiina loo banay inay dukadaan yuu leeyahay yowmul jumca waa ka duwan tahay maalmaheeda kale oo tatawuca ayada bannaan maalinta jumcada waxa ka soo haray tatawuc mutlaqan awqaadkaas ma bannaana imaam shaafici halkaas soo maray markaasuu yiri fa amaa salaatu fardin salaadii waajib ah aw janaazatin aw ma'muurin biha mu'akkadatin sunno lays amray hadday tahay وإن لم تكن فرضا باي أهانني أو كان صلاة أهانجري يصليها وقتي معناها أو دكجي صلاة دكجري أو إلوبي فأغفلها أو إلوبي فتصلى في هذه الأوقات أوقات النبي قال لدكن أو يري فرض والدك كرا جنازة والدك سنة مؤكد والدك كرا صلاة دكجرتي وكل أفتو سنة هذا وسوق الله كرتا وحنساسه إري بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها بور ننكي أو صلاة اللوبو نبي وحور ننكي صلاة اللوبو أما كهردو فليصليها إذا ذكرها الله لمركو سو حسد هدو كذا مركو وحادعي كرتو هدي كسو كعدد قرح دو صوبح الربطو قبلها ب5 دقائق كسو كعدد طبعا ويسقادت قال وسو ويسقادت انت قرحد صبحي قرحدي وصبحيسا فرضكي او صبحي واسكدوكا كرتا
liannahu waqtigaanaad soo xasuusatay adiga nahyi kuma khusey. waa tii xadiidkii ahayd salaada kafaara kala male haddii laga tago ilaa an yusaliha idaa dakaraha wa aqimi salaata lidikrii. wa biannahu calayhi salaatu wasalaam ra'aa qaysan buu arkay yusalii bacda asubxi ninkaas saxaabiga oo salaada kadib dukanay faqaala wuxuu iri maa haataani rakcataani waqtigan labada ragca aad dukanayso waqtilmanhiga ah muxuu yahay? qaala wuxuu iri rakcataa alfajri labadii fajarka oo labadii ragca oo subaxa ka horeysay oon iloobay waaye. falam yunkirhu nabiga ma inkirinoo ma dhihin ma anfaciisa ma dhihino waa ka aamusay. marka waxaan ogaanay sunnada fajriga ah waa salaad aad duka jirtood ilowday waqtigii manhiga ahayba hadda la dukana bacda subxi ah. nebigan marka loo sheegay waa ka aamusay. marka waxaan u daliishanay buu ku leeyahay salaad waqti aad hore duka jirtay haddaad ilowdid waqtiga manhiga waa dukanaysaahoo sabab ou shaydaanka kugu soo gala male liannahu cibaado aad hore ulahaa jirtay waay. wa biannahu calayhi salaatu wasalaam salaa rakcatayni buu dukaday bacda alcasri fasa'alatu canhumaa umu salama weydiisay faqaala wuxuu iri faqaala wuxuu iri nabigu humaa rakcataani waa laba ragca kuntu usaliihimaa laba ragcoon duka jiray labadii ragcoo duhurka ka dambeysay yaa nabiga ama casirka ka horeysay siday tahayba waxaan u malaynaha siday xadiidku soo aroortay labadii ragcoo duhurka ka dambeysay yaa fashaqalanii canhuma alwafdu yuu yiri markaa sidaa daraaddeed fahumaa haataani buu yiri xadiidka saasuu ku dhammaystiray. labadii duhur labadii ragcoo duhurka kadib ah yaa wafdi intuu ii yimid uu ii mashquuliyey waqti aan dukadana waa waaye casirka kadib uu markaa uu nabiga uu soo qalay. nebiga hadduu mar salaad bilaabana thabatahu markaasuu casir kasta uu duka jiray bacdigiisa. marka salaadii haddiiba qallo tahay sunno ahaatee ama waajib ha ahaatee in la duka karo yay caddaysay. wa habata canhu calayhi salaatu wasalaam annahu qaala inuu yiri axabu alacmaali ila allahi adwamuha wa in qalla. marka xadiidkaasna wuxuu tusinayaa acmaasha ilaahay loogu jacayl badan yahay midda oo la daa'imi ogyahay waa wa in qalla camalkaas haba yaraado. oo fa axaba nebigu wuxuu jeclaaday fadla dawaam ninkii cibaado lahay oy dhaaftay sidii dawaamkeeda u ilaaliyo awqaatilmanhi buu duka karaa buu u jeedaa. waxaa ii dheeraad abuu iri wasalla annaasu calaa janaa'isihim bacda alcasri sunno la wada yaqaano oo muslimiinta ay leeyihiin oo markii ay salaada casirka dukadaan janaasooyinka waa lasoo dhigaa waana lagu dukadaa buuri. marka haddii salaad bacda alcasri salaadoo dhan ay mamnuuc ahaan lahayd janaaso in lagu dukada ma banaanaan lahayn muslimiintana way ku dukadeen. wa bacda asubxi salla annaasu calaa janaa'isihim bacda alcasri wa bacda asubxi falaa yajuusu an yakuuna nahyuhu can asalaati fi asaacaati alatii nahaa fiiha canha ila calaa maa wasaftu. wuxuu iri falaa yajuusu an yakuuna nahyuhu nahyiga nebiga uu salaad naga reebay ma ahaan karo fi saacaati alatii nahaa fiiha canha saacaadka salaad in la dukado uu naga reebay ilaa calaa maa wasaftu wixii aniga aan sifay oo tatawuca mutlaqa oon sababta lahayn oo uu ekaanay shaydaan in loogu dhowaanay maahine wixii sabab leh oo la ogyahay waxaa loo dukanaya sababtoodan ay caddahay manhi kama aha. dabcan waxa weeyaa masaladaas ee culummada kalaam badan bay ku leeyihiin. waxaa u badan dad badana waxay qabaan salaadoo dhan oo sunno ah wixii waajib ka soo haroo dhan mutlaqan waa xaraam awqaati nahyi waay walow sababba ha lahaato. abuu xaniifa ka mid ah. wannahyu fii maa siwaa dalika thaabitun sunnada mutlaqa u jeedaa wixii aan sheegay in awqaati nahyi la duka karo wixii kasoo hara thaabitun nahyigi waa sugan yahay ilaa bimakata maka oo waqtiga sunnada mutlaqa layska duka karo. walaysa min hadihi alaxaadiid shay-un mukhtalifun wax iskhilaafsan kuma jiraanoo haddii aad aragtid
nebiga oo baneeyey ama sugay waqtigii manhiga ahaa salaad la dukanayo ama asiga uu dukanayo waxaa lagu bixinaya inay sabab leedahay wixii laga marka la manhiyo waxaa ku soo haraya waxa tadawuc aan sababta lahayn sidaasay axaadiida soo aroortay ay isku waafaqay buu ku leeyahay wallahu aclam sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wa aalihi wa saxbihi ajmaciin.